ururka Gurmad iyo Gargaar wuxuu markasta u taagan yahay oo u soo hawlgalaya inuu caawiyo walaalkiisa tabaaleysan walaalkiisa dhibaataysan walaalkiisa garabka u baahan maanta soo duwaan gelinay oo isku keenay waxaana fursad u helnay 300 inay duwaan gashay yihiin laakiin aysan wali waxbarasho helin waxaan helnay aduu 3 fasal wax ayaan isku keenay waxbarashada macallimiintii 3 fasal ayay wax u dhigaan waxaana furnay iskuulkaas bilowgii sanadkan ayaan furnay waxaan u baahanahay ayadoo saas ay u dhacday in 300 la diiwaan galiyay haatana 3 fasal aan fursad u helay inaan wax la baro oo ay isku taxalluujiyeen guddiga gargaar iyo gurmad dhinaca macallimiinta waxaan naga caawiya dad aan hadaa la idmahayo jecel inay wax sadaqaystaan ayaa naga caawiya kirada sidoo kale dad baa marmarna anaga bixina oo maamulkiya marna waxa naga caawiya hadaa la idmahayo dadka ganacsiga oo jecel dadka islaamka inay wax u qabtaan oo baahan marka waxaan haatan codsanaynaa in 3 fasal 300 oo 3 fasal kaliya gudaha ku jidho wax baranayso inta kale in ayagana lagu soo daro gudaha la soo galiyo waxbarashada u baahan dhulkii waa helnay dadkaas loo dhisi lahaa wax lagu bari lahaa waa helnay waa noo diyaar dad baa na siiyay oo nagu caawimay ma ahan mid waa mid hubo oo hadaa la idmahayo sax ah waxaan jecelnahay in laga caawiyo waxbarashadooda in hadaa la idmahayo dhinaca Gurmad iyo Gargaar meel kasta ay joogaan waa mahadsan yihiin 114 ku salaabaynaa sida dadaalka ay muujiyeen sida ay ugu soo gaarsiiyeen dadka danyarta iyo agoomaha in wax loo qabto aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana la furay sanadkan 2018 hadda maantay dhamaadka ah bilowgiisii maadaama ay baahiyo badan iyo gobolka ay ka jiraan maaragtay dad badan oo agoomo iyo danyar ah oo waxbarasho la'aan ay haysay sidaa darteed waxa sida xawaayi u sheegay ilaa 300 dad dhaafaya oo agoon iyo danyar isugu jira ayaa la diiwaan galiyay dadkaas waxa fursad helay 3 fasal ardo gaaraysa ayaa tasiilaadkii iyo fursadii noo saamaxday ayadoo ay sidaas tahay haddana waxaan isku dayaynaa inaan kuwa kaleeto oo dhiman iyo in ka sii badanba aan ku didaalna sidii ay jaanis u heli lahaayeen waxa kaleeto oo jira dhulkaas uu sheegay xoghayuhu waa dhul jira oo cabirkiisu 100 yahay waxa dhulkaas isku dayaynaa cid kasta oo wax awooda in si dadkaas ay wax ugu bartaan cid kasta oo wax awooda aan ku bixino dadaalkeena iyo wixii aan heli karno sidii loo dhisi lahaa waxa kale oo jira in baahidu ay gobolkan aad u badan tahay oo ay la soo koobi karin macallimiinta iyo maaragtay kirada guriga macnaha fasalada dad baa bixiya mararka qaar annaga ayaa bixina annaga isku tashana waxaan marka rabaa oo mahad celinayaa ururka Gurmad iyo Gargaar meel walba ay joogaan dadaalada ay sameeyeen gobollo badan ka sameeyeen dad badan oo baahi dhibaataysan ay u qabteen annaguna waxaan isku dayaynaa sidoo kale inaan dhinacna maaragtay qaybta gaalkacyo iyo galmudug aan boqolkiiba intaan ka gaarno aan qabanno waxa kale oo hadda halkaan nagula sugan oo nala jooga
wakiilkii guud galmudug oo maaragtay u qaabilsanaa ururka Gurmad iyo Gargaar waxaan intaas ku darayaa in baahiyahaas jira la tixgeliyo oo cid walba oo wax wada ay tixgeliso oo maaragtay wadankan ama dadka u dhashay ama dadka maaragtay jecel inay wax la baxaan oo dadkaas maaragtay awoomaha iyo danyarta waan salaamaya salaanka bacdigeed waxaan nahay hooyooyinkii ilmahan dhalay oo ahaa masaakiinta oo anigu waxaan kamid ahay dadka oo hooyooyinka ilmaha dhalay aan kamid ahay hase ahaatee ururka Gurmad iyo Gargaar weyn gacan qabteen waa isku kaaya keeneen meel bay yiraahdeen way idin dhisaynaa balse ahaatee dadka waxa weeye waxa looga baahan yahay dadka Ilaahay baa wax deeq bixiya dadka yiraahdo waxbaan bixinayna wax haysta oo Ilaahay wax siiyay waxa weeye inay anaga dadkan eegaan masaakiinta oo ilna xariis la ku fiirsha Ilaahay baa naxariis badan naxariistu xagga rabbi bay tahay in Allah naga dhigo kuwi samra macal saabiriina hadaan wax yarnahay hadaan wax badan nahaba kuwi Ilaahay dartiis ku samra Allah naga dhigo anagu waxa weeye Ilaahay baa la baryaa marka waxa weeye maadaama ayagu isku xilqaameen inay dadkan masaakiinta wax siiyaan anagu waxaan leenahay way mahadsan yihiin hase ahaatee waxa inoo qaban karaan kulay waa u jeedaan sadar muuqda waa su'aal ma doona dadka masaakiinta halkan la isugu keenay ururku ay gacan qabanayaan way u jeedaan marka waxa weeye anagu waxaan u sheegaynaa ma jirto cidii wax sadaqaysanaysa cidii u gargaaraysa agoon way leeyihiin danyar way leeyihiin waxbarasho way u baahan yihiin guriga way u baahan yihiin baalkii biyo way u baahan yihiin isqolo way u baahan yihiin meel banaan ay joogan dadkaani hase ahaatee waxa weeye hadda fasalkan baa la isugu keenay oo wax lagu baraa kuwaan intaan iyo intoo kale iyo kasii badan baa banaanka joogto dhooban wax hadda weli loo qabtana inay jirinin hadda cidii wax awooda iyo cidii anaga kaalmo noo fidinaysa Ilaahay baa kaalmo leh oo Ilaahay wax siiyo Ilaahay dartiisa xolo baxaysa anaguna waan ku taageersanahay Allah gargaaro qayr siiyo cidii wax la baxaysa awlan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan u mahad celinay marka koobaad Ilaahay suuqeen keena kana waa caafimaad qabna marka labaad waxa mahad iska leh ururka Gurmad iyo Gargaar ee ka hawlgala gaalkacaya sababtoo ah waxay qabteen waxyaabo fara badan bay qabteen qaybta gaalkacaya oo ay kamid tahay caafimaadka waxay dhabarka u dhigeen inay soo ururiyaan agoon fara badan iyo masaakiin fara badan oo ay fadhiisiyaan goob waxbarasho waxa kale oo ay soo bandhigeen inay nagu wareejiyeen dhul banaan dhulkaas oo la rabo in laga qayb qaato cid kasta oo Soomaali ah inay ka qayb qaato oo loo dhiso ubadka daranyaysan ama dadkeena baahidu ka muuqato runaantii wax qabad weyn oo sameeyeen maadaama inta qabteen waxaan baaq u dirayaa dhammaan xubnaha ururka ama madaxda ururka meel kasta oo joogaanba waxa kale oo baaq u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan leh ha loo caawiyo walaalaheena dhibaataysan waxay la yimaadeen inay ubadkii fadhiisiyaan waxay la yimaadeen inay wax baraan waxay la yimaadeen inay dhul bixiyaan dhammaantood ku maasan yihiin waxa ay qabteen waan uga mahad celinaynaa innaga waxa laga rabaa inteena kale bulshada mujtamaca ama Gurmad iyo Gargaar ha ahaato ama ahaato maxay ahaydaan dadweynaha kale ee Soomaaliyeed dibad iyo dalba waxaan baaq u dirayaa inay soo caawiyaan ubadkaas dhulka la siiyay iyo kuwa dibadda fadhiyaba aynu xareeyno aynu wax barno waayo ilmaha dibadda fadhiya inagu naga daranyoobaya ilmaha dibadda fadhiya waxbarasho waayay inagu naga daranyoobaya kuwa hadda fadhiyana waxa ay noo sheegeen inuu culays haysto kiradii iyo kuraastii iyo waxyaabo badan la keedan yihiin dhammaantood waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin hal canug ama laba canug oo naga kafaala qaada Ilaahay dartiisna waxay ku tahay sadaqo ilmaheena waxay u noqonaysaa daryeel aad iyo aad baan maasantihiin kun jeer baan nimad celinaynaa waan u gudbinaynaa qof kasta oo Soomaaliyeed waan u gudbinaynaa qof kasta oo deegaanka u dhashay waxaan u gudbinaynaa madaxda ururka wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh